marka laga reebo farmaajo qof kasta oo Soomaali ah oo ku guuleysta oo doorasho ku soo baxa waa mudan yahay in la taageero laakiin mowqifkayga waxaan maleynaa statementgaas 2018 ayaan iri meeshii email ka fogaan jooga waxaan aaminsanahay wadankan qof aan hawi ahayn in uusan deji karin qaba aniga doorashada soo socota berigi horeeto no more Ethiopian iyo no more Abgaal lagu gal sanadkii hore Abgaal no more Abgaal no more Ethiopian sanadkan hadda no more farmaajo no more new face wax la leeyahay wajh cusubna lama ogolo farmaajona lama ogolo Soomaaliya waxaan rabaa dadka inaan u sheego qofku waxa la yiraahdaa yaasiinka waa ka kacaa laakiin jinaasa kama kaco farmaajo waa sooya yaasiinka mashruuciisa waa kiimid jinaasu jooga wuxuu saaran yahay sheegeen dhadhaar uu saaran yahay wax rajaa male ninkaas laakiin waxa la yiraahdaa Soomaalida waxa ii sheegaysaa marka hadii ay dhacdo in la dooro kale laga fikir karo Soomaalidu xasuusteedu inay eber tahay ama la dhihi karo waa umulo kale umusha dabiiciin markay foolnayso waa waxay dhahdaan ninkii mar dambe Ilaahay ugu macisho maalintii umusha ka baxdana waa soo uunsataa marka Soomaalidu waxa leedahay yani wixii la soo maray xisaabta kuma darsanayso aniga waxaan qabaa farmaajo wax fursada uu leeyahay oo dalkan in dib loogu doorto ma jirto hadii la doortana macnaheedu continuation of civil war continuation of crisis continuation of division يعني بلايا سي سocota baa qorta la gali doona mawgii xal ma ka imaanayo aniga asaga hadaan isma soo taagan adduunka mashruucaaga siyaasiga markuu fashilmo waa la risaan gareeyaa because dirqiga ma fiican in adiga madax adeegto oo waxaan ku shaqeynay aad isku daydo inaad darbiga madax la dhacdo ma shaqeynayso I don't believe in ay farmaajo fursad dib loogu soo doortay dadka Soomaaliyeedna ay abitaad arrinkaas ku hayn haday dhacdana dadkan Soomaaliyeed waa dad waalan dal inuu dadkiisu badbaado rabo